madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhaweyd gaadhay dalka Djibouti waxaana halkaas ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalkaas Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo wasiirka arrimaha dibadda. labada madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maalinta berri ah wada hadal ka yeelanaya xaaladaha siyaasadeed ee labada dal iyo amniga iyo dhaqaalaha gaar ahaan danaha labada dal ee jamhuuriyadood. booqashadan madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa salka ku haysa iskaashiga labada dal oo amniga iyo dhaqaalaha. Talsan TV Cabdiqani Cali Faarax Burco.